madaxweynihii sagaalaad uguna daacadsanaa Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa iminka ka duulay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya isagoo u socdaalay dalka Itoobiya ee caasimadda dalkaasi Addis Ababa. haddaba maxay tahay sababta uu Farmaajo u tagay dalka Itoobiya? warbixino kala duwan ayaanu idinkaga haynaa. marunba in khilaaf xoog leh uu xilliga kani ka dhex taagan yahay dowladda Itoobiya iyo sidoo kaleeto Soomaaliya. haddaba inta aan u gudagelin muuqaalkan iyo sidoo kaleeto faahfaahintiisaba waxaan idinka codsanayaa inaad muuqaalka laygareysaan sina sheer gareysaan. waxaa soo baxday oo markaasi run noqotay in jamaahiirta nabad iyo nolol ay horay u saadaaliyeen in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu isagu wadankan uusan samata bixin karin, meel wanaagsanna uusan geyn karin. durbaba waxaa markaasi soo ifbaxay khilaaf inaba aan caadi ahayn oo Itoobiya ay la soo shirtagtay. haddaba Farmaajo waxa uu noqday caawa nabadoon oo maanta ayuu ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. waxaa kala socotaa in markii uu dhoofayay madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo qoryo la isku qabtay dabeedna ilbaabada hore ee garoonka diyaaradaha ee Muqdisho la isku celshay oo la isfeeri rabay oo xitaa qoryo la isku raacsaday, xabadan la isku ridi rabo, Ilaahay uu kala badbaadiyay. waxaa halkaasi ku soo baxay ciidamo daacad u ahaa Maxamed Cabdilaahi Farmaajo xabiib ilmalaayiin oo markaasi iyagu rabay inay markaasi uu dhoofo madaxweynaha dabeedna oday Soomaaliyeed oo nabadoon ah, miskiin, dulqaad badan, xishood badan, edeb, akhlaaq Ilaahay ku manaystay uu yahay. ayay markaasi waxa ay go'aansadeen inaan la hor istaagin madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo, sidaas ayuuna wadanka uga baxay oo u socdaalay. warbixintan oo dhammaystiran intaan guda gelin, fadlan walaalkayga Soomaaliyeed waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa in muuqaalkan aad marka hore meel fog gaarsiiso, aadna subscribe inugu caawiso YouTube-kan Xaqiiq TV, wehelka bulshada, wehelka dhigo mar walba. dalka Itoobiya waxa uu ku yaala geeska Afrika. maalmihii ugu dambeeyayna waxaa socdaalo kala duwan uu marayay geeska Afrika madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isagu socdaalo ku tagay Djibouti iyo sidoo kale Kenya iyo weliba Eritrea. Itoobiyana ay ka gaabsatay oo ay ku sheegtay in socdaalada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay markaasi carqalad gelinayso xiriirkii soo jireen ahaa ee ka dhaxeeyay dowladaha Soomaaliya iyo sidoo kale Itoobiya. waxaana xiriirkaasi lagu soo waramayaa in hagaajintiisa iyo toosintiisaba uu markaasi isagu uu sabab u ahaa amaba uu keenaba Ilaahay dembigiisa ha dhaafee madaxweynihii sagaalaad uguna daacadsanaa madaxdii soo martay dalka burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. caawa uu god ku dhacay Itoobiyana ay markaasi walaac xoogan ay ka muujisay cilaaqaadkii u dhaxeeyay dowladaha Soomaaliya iyo sidoo kale Itoobiya maadaama uu haatan god ku dhacay. waxaana Farmaajo uu go'aansaday in godkaas uu ku dhacay uu ka soo bixiyo xiriirkii ka dhaxeeyay labada dal maadaama isagu uu wado dheer u soo maray xilligii uu madaxweynaha wadanka ka ahaa in Itoobiya ay noqoto saaxiibka kaliya ee geeska Afrika Soomaaliya ay ku taamayso maadaama waxyaabo badan oo labada dal ka dhaxeeyay la fududeeyay. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo casuumad u dirsaday dalka Itoobiya gaar ahaan ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa waxa markaasi uu qaadacay Abiy Ahmed ninka lagu magacaabo in safarada uu geeska Afrika Xasan Sheekh Maxamuud maalmihii ugu dambeeyay uu ku marayay uusan wadankiisa markaasi casuumad uusan u fidinin uusan soo galaynin maadaama xiriirkii qotada dheeraa ee ka dhaxeeyay labada dal uu xumeeyay Xasan Sheekh Maxamuud. waxaana talabadan Xasan Sheekh Maxamuud uu qaaday ee xiriirka ugu gaaminayo dowladda Itoobiya ay tahay mid uu ku xumeynayay ama uu ku ceebeynayay heshiisyadii uu galay madaxweynihii isaga ka horreeyay ee ka daacadda badnaa Maxamed Cabdilaahi Farmaajo xabiib ilmalaayiin, Ilaahay dembigiisa ha dhaafee. waxaana caawa dareenka Xasan Sheekh Maxamuud ilo xogagaal ah oo filla Soomaaliya ku sugan ay noo sheegeen inuu yahay dareenkiisu mid aad u kacsan, walwal iyo murugan ay ka muuqato maadaama uu socdaalo ku tagay Djibouti iyo sidoo kale Kenya, Eritrea. Itoobiyana ay ka gaabsatay oo daaqadaha ay ka xiratay xabiib ilmalaayiin oo isku bedelay oday dhaqan, oday Soomaaliyeed oo markaasi isagu degan magaalada Muqdisho, wadankana aan ka bixin, wadankana aan markaasi isagu go'aansaday inuusan ka bixin, baasaboorkii ajaanibtii iyo Ameerikana iska dhiibay ayaa waxa uu markaasi isagu go'aansaday cid asaga oo aysan dirinin, cidna howlgelinin, in wadaniyadiisa iyo sidoo kale caqligiisa uu kaashado. dabeedna waxa uu socdaalay Itoobiya isagoo markaasi kulamo qarsoodi ah oo ilaa iyo hadda warbaahintu aysan ka warhelin, balse Xaqiiq TV ay u dhabagashay ilo xogagaal ahna oo madaxtooyada Soomaaliya ku sugan oo dowladda federaalka Soomaaliya ka tirsanna ay noo sheegeen inuu markaasi Farmaajo isagu iskiis isku xilqaamay si arrintan mugdiga iyo sidoo kale tashuushka ku jira ee u dhaxeeya labada wadan ee Itoobiya iyo sidoo kale Soomaaliya uu markaasi madmadowga ka bixiyo miiska wada hadalkana la isugu yimaado. dabeedna halkaasi xiriirkii wanaagsanaa ee Farmaajo uu soo xirigeliyay laga sii bilaabo.
shacabka Soomaaliyeed waad aragtaan in dib lidinku soo celiyay awoodiinii in gacanta lidin soo galiyay in golaha shacabka aqalka sare labadaba iyo anigu aan caaw halkan ku seexay inaan doonayno in aad gacanta ku qabsataan awoodiina aad ugu codeysaan xisbiga aad doonaysaan iyo shakhsiga aad doonaysaan. madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa sheegay in baarlamaanka 10aad ee qaranku ka tilmaaman yahay baarlamaanadii dalka soo maray marka laga tusaale qaato tirada sharciyada muhiimka ah ee meel mariyeen iyo sida ay u kor joogteeyeen howlgudashada hay'adaha dawladda. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo baarlamaanka labada aqal oo runtii kalfadhiga hadda ugu dambeeyay lixaad shaqo aad iyo aad runtii loogu baahan yahay oo muuqda u qabtay khaasatan aan wax ka sii raahdo baarlamaankan 10aad anigu waxaan aaminsanahay inaad ka duwan tihiin kii 9aad iyo 8aad iyo kuwii ka horeeyay waxaa uga duwan tihiin runtii waxaa qayb ka tihiin ama aad hormood ka tihiin xasilinta iyo deganaanshaha dawladnimo. waxay ka fogaadeen wax alla wixii dhibaato u keeni karay dawladnimada iyo ama dib u dhac u keeni karay. waxaad arkaysaan oo leeyahay waa la qabtay waxay ka ahaayeen hormood ayay ka ahaayeen horseed ayay ka ahaayeen la'aantood deganaashahooda iyo xasiloonidooda iyo wada shaqayn la'aantoodana wixii la qabtay lama qabteen. marka waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin. tan labaad wada shaqaynta dawladda dhexdeeda ah. gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo ku hadlay afka labada aqal ee baarlamaanka dalka ayaa dul istaagay doorka ay ka qaadatay wada shaqaynta golayaasha sharci dejintu meel marinta sharciyaasha dhaxal reebka ah ee lagu ansixiyay ilaa iyo haatan fadhiyada baarlamaanka 10aad ee jamhuuriyadda. markuu horeyso waxaan rabaa inaan u mahadceliyo aqalka sare ee baarlamaanka oo runtii juhdi fara badan ku bixiyay shuruucdii aan u gudbinay soona dhammaystiray waqtigan xaadirka ahna wax sharci ah oo baarlamaanka gaar ahaan golaha shacabka la yaala ayna jirin. isla markaasna gudoomiyaha golaha aqalka sare waxaan ugu mahadcelinayaa in runtii asagana si labada aqal ay wada shaqeeyaan juhdi fara badan uu ku bixiyay. taana guusheeda waa la dareemi karaa shuruuc fara badan oo golaha shacabka ay ansixiyeen oo aqalka sare loo gudbiyey. shuruucdii isbeddelka waxaad dareemi kartaan shirka annagii ugu dambeeyay inta sharci oo ka soo noqotay aqalka sare oo la ansixiyey. waa mid ka mid ah habeenada taariikhiga ah ee soo maray sooyaalka dhigaal taariikheed ee dawladnimadeena dhowaan 60 jirsanaysa iyadoona hadda loo tabaabushaynayo sidii muwaadiniinta Soomaaliyeed xaq ugu yeelan lahaayeen doorashada matalayaashooda siyaasadda. Shucayb Maxamed Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.